بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan walaalaha Soomaaliyeed aad baan idin salaamayaa maanta waxaan inoo hayaa barnaamij la yiraahdo dhaxal reeb oo noqon doona mid aynu wax badan kaga ogaan doono shirkadda Ombasif iyo faa'iidada ay noo leedahay barnaamijka maanta waxa inoogu cusubman gudoomiyaha gudoomiye Cabdi Cali Sow oo ah walaalkii Soomaaliyeed ee ugu horeeyay ee shirkaddan soo bandhiga ummadda Soomaaliyeed gudoomiye soo dhawow aad baan ku soo dhaweynayaa waxaan jeclaa gudoomiye inaan ku weydiiyo waa kuma gudoomiye Cabdi Cali Sow insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكسلام يا آمنة قرنة ما شاء الله هذا أقوم مع سنتهي برنامج دحل ريب برنامج كي قيب تي سي أما مارتي هبين كيسي أوه الرئيسي مارتي العودي إلى دوقع السنتو وانكاكم هاد إعلنا يا سيدو قلتو حسلامة يا ورالها يقولنا دعوان دونا مارتي أو كنتي أرجيني إني مارتي واحد بدن كفايدان برنامج كوا برنامج تحانا سيدا إيشيك تآمنو إن شاء الله وحرجينا إن هبين بدن كل مدونا marka aamin waa mahadsantahay runtii su'aal fiican ay weydiisay Cabdi Cali Sow Cabdi Xakiin Muxudiin Cali Sow alay dhahaa aniga barasho wanaagsan cidii intaqaano iyo cidaan aqoon waxaan ahay aabba Soomaaliyeed oo degan maartay magaalada Melbourne wadanka Australia wadankan waxaan imiday runtii long time ago waqtigii ugu horeeyay wadankan imidaan ahay oo Soomaalida ah qaxay ka hor ayaan imiday anigoo nin dhalinyaro ah alxamdulillah waxaan ahay aabba shan caruur leh oo iska xamaasha haddana maaragtay rabo in maaragtay uu dad badan oo Soomaaliyeed noloshooda wax ka bedelo ilaahay idinkiis insha Allah ma sha Allah gudoomiye aad baad mahadsan tahay gudoomiye waxaan jeclaa waxa tahay sidaan horeba u soo sheegay walaalkii u horeeyay ee shirkaddan ummadda Soomaaliyeed soo bandhiga shirkadda Ombasif haddaba waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo waa maxay shirkaddan Ombasif inaad bal faahfaahin naga siisid sida walaalaha أنا أقول تقول لهن شركة Ombasif waxay tahay oo ogaadaan maxay tahay shirkaddan Ombasif ما شاء الله سؤال wanaagsan waa run waxa laga hadlayo maxay yihiin Ombasif amino waa runtii waa shirkad la yiraahdo technology ku saabsan waa IT company global IT company waaye oo startup waxa la yiraahdaa shirkadaha la dhisayo oo bilowga waa bilow curdun waaye waxaa la soo dhiraalinayay ilaa muddo 6 sano ah ayaa la soo dhiraalinayay ilaa haddana waa ku socotaa dhiraadeerkii inkastoo ay gabagaba ku dhowdahay waa IT company information technology technologiyada casriga ah oo AI ku shaqeysa garaadka macmalka iyo machine learning waxaa la yiraahdaa robotica iyo maaragtay habka mashiinada iyo loo tababaro ayay ku shaqo leedahay from the ground up ayaa laga dhisayaa oo maaragtay ilaa hoos ma aha wax copycat ah oo la samaynayo waa wax ilaa iyo kun engineer ay ku shaqeynayaan oo maaragtay laga soo dhisayo ilaa ground floor kana shaqeysa waxa loo yaqaan SaaS waxay ku shaqo leedahay SaaS marka la soo gaabiyo waa SaaS waxay u taagan tahay software as a service provider waayo waxay ay maaragtay ka qabtirtaa shirkadaha iyo maaragtay meel walbo shaqaale ka shaqeeyo ha noqoto xafiis dowlo ha noqoto jaamacad ha noqoto maaragtay shirkadaha kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn meel bini aadam ka shaqeeyo dhan ayay waxay u fududeynaysaa howl maalmoodkooda qalabkaas digitalka oo softwareka oo ay soo saarto shirkadu ayay hadhowta iib geynaysaa oo subscription based business okay marka gudoomiye maadaama ay tahay shirkad noocan ah oo howl maalmeedka u fududeynaysa maxaa ku dhahdaa shirkadaha iyo dadkaba waxaad gudoomiye goormaad haddaba adigu ku soo biirtay shirkaddan Ombasif sideedse ugu soo biirtay insha Allah bal wax faahfaahin waxaad naga siisaa xilligii aad ku soo biirtay iyo sidii aad u aragtay xilligii aad aragtay fursaddan qaaliga ah ما صدق أمن وسؤال في عن رنتي أنا شركة دان وعن كتر سنة مدة لبس سنة بسديد بلوت مولينا يعني تهاي دانا قلدانين أما طبعا بلوت بس كده
2 sano iyo 10 bilood ayaan ka tirsanahay oo iyadoo runtii xurdan ah oo markaas 2 sano iyo ugu horeysay 2018kii ayaa la bilaabay iyada dhisitaankeeda oo dadkii maaragtay fikirka lahaa iyo kuwii aniga ila midka ahaayo fikradda iyo ideolojiyada qaatay aaminay ilaa iyo 500,000 oo qof ayaa ku jirtaan u malaynayaa markaan ku biiraya aniga oo diiwaan gashneed oo igu horeysay 2 sano aheeday marka waxaana uga biiray through the maaragtay anigoo waxaan raadinayay markii ugu horeba waxaan raadinayay something to supplement wax yaroo aan ku saa'idiyo nolol maalmeedka iyo shaqada waan ognahay dee rafaadka ka jira qurbaha aamino in maaragtay dadku ay waqtigii iyo la dagaalamayaan carruurtii iyo gurigii aad waqti laysu la'yahay marka waxaan raadinayay si uun aan uga shaqaysiiyo wax uun laga shaqeeyo internetka oo adiga oo laptopkaaga wato oo maaragtay isticmaalaya internetka sidee baad wax uun usoo saa'idisaa ama ha noqoto mid ku kaalmaysa wax yar ka hesho ama ha noqoto mid aad uga maaranto shaqadaada hore uu ahaa ulajeedadeeda dee anigoo baarbaaraya social mediaha ayaan ka arkay Dr. Bill Williams nin la yiraahdo oo maaragtay Atlanta waddanka la yiraahdo gobolka Atlanta magaalada Georgia degan oo Mareykanka waa nin Mareykan oo dhakhtar dentist ah oo ka hadlaya ayaan arkay waan u kuurgalay waan la hadlay waan weydiiyey su'aalaan weydiiyey runtii anigooba markii horeba markaan arkay dee wixii laga ganacsanaya markaan arkay inay yihiin wax software oo aan muuqan horey ayaan usoo galay ganacsiyaal kaleeto waan yaqiin waxyaabaha la iibgeeyo waan garanayay culayska iyo rafaadka ay leeyihiinna waan garanayay oo dee inaysan sahlanayn oo cid walba huba aysan samayn karin waan ogaa iyadoo taas jirto ayaan waxaan markaan dareemay in onbasif waxa laga ganacsanayaa oo ay yihiin software ayaan runtii culays iga degay oo isla markiiba aan 50% aan niyadeydu wax uun ii sheegtay inay waxaanu yihiin wax maaragtay qiimo ku fadhiya anigoo marka softwareka qiimaha ay leedahay suuqa wax ay ka joogaan valuega teknolojiyada wixii oo dhan anigoo xoogaa yaro fikrad ka haysto ayaa 50% niyadeydu markiiba degtay markaan asiga su'aalo sii weydiiyeyna runtii oo iisii sharaxay aan si free ah isku diiwaan geliyey sorry free ma ahayn waa isdiiwaan geliyey email baan iska diiwaan geliyey dabcadana wuxuu ii sheegay fiiga la dhiibayo fiigii saa ku dhiibay marka waan sii ogaaday waan sii bartay waxaa kulamaa jira laga qaybgeli jiray kulamadaasaan kasii qaybgalay saas baan ugu riyaaqay ugu biiray maasha allah gudoomiye bishii abril bay ahayd aniga markii u horeysay ee aan ku arko adiga oo walaalo Soomaaliyeed oo anigu kamid ahay oo waqtiga business kale aan wada isticmaalaynay ayaa naloo ka soo casuumay kadibna shirkadan ayaa si qurux badan noogu sharaxday xilli ma ayay kugu dhalatay markaa gudoomiye in aad adigu ummadda Soomaaliyeed sida gurubyada iyo maxaan ku yiraahdaa social mediaha xilli may kugu dhalatay inaad la share garayso oo aad u sheegto fursadan dadka Soomaaliyeed maxaase u sabab ahaa sababta u weynee kugu kaliftay inaad ummadda u share garayso maxay ahayd maadaama maqlay shirkadan inayna ay tahayna shirkadan ayna ku xidhnay qofka ayna ku xidhaynin inuu cid maxaan ku yiraahdaa u yeero ama dad kale uu casuumo adiga sidee kuugu dhalatay inaad dadka la share garayso gudoomiye waa maasantahay amina waa su'aal aad fiican hoosna hadda jawaabtii horeba ugu dambeysay waxa markuu qofka bani aadamka ku mashquulo qiimahooda iyo uu ogaado oo waqti geliyo ayaa horta waxaad ogaanaysaa faa'iido iyo qayr waxa ay leeyihiin sharafta ay leeyihiin ilaan qofku hadduusan ogeynba wixii uusan ku warhaynin macnaha ma la yeelanayaan ku mashquulitaankii markaan ku biiray aan ka qaybgeli jiray kulamada lagu sharaxayo dee maalin walba dad baa kusoo biiri jiray maalintii ilaa iyo 5,000 4,000 qofooda kusoo biiri jiray weliba sanadkii aniga aan ku biiray 6 bil gudahooda lamaadkii 2021kii aniga waxaan ku biiray umaleynaa Maarse ahayd dhamaadkeedii waxa almost waxay ku dhawaatay 1 milyan 800,900 oo malaayaa tirada xooli baa loogu soo biiray marka dadka su'aal ay qabaan markii lagu soo biiro waxaa jiri jiray kulamo maaragtay loogu sharaxayo dadku iyagoo loo soo sharaxay qaarkood oo lagu soo dhiirigeliyay inay isdiiwaan geliyaan
oo ay kusoo biiraan ayaa haddana markay soo galaan ayaa waxay u baahan yihiin in xoogaa faahfaahin dheeriya lasii siiyo marka kulamadaasaan ka qayb geli jiraan dhegeysan jiray aash mufaarax ayaan arki jiray oo noo imaan jiray markinoo ilaa 2 saac marka su-aaluhu iyo jawaabuhu dhammaadaan ayuu imaan jiray oo noo sheegi jiray maaragtay meesha wax u socdaan iyo meesha wax yihiin waxaan dareemay marka xawliga iyo xoogga ay leedahay shirkadan iyo sidaad sheegtayba in aadan qofku ku qasbanaynin inuu sida shirkadihii aan naqiinoo kaleeta oo la leeyahay waa inaad 5 qof keentaa waa inaad 10 qof keentaa waa inaad garab hebel buuxisaa inaad maaragtay aad naqataa waxaa la yidhaahdo diamond gold hebelow waxyaabihii aan naqiinay oo multi level marketingka ahaay inaysan ahayn oo shirkadu ay wax walba automation u sameynayso website ay ku dhisayso maxaa la yidhahdaa xayeysiin ay ku dirayso iyadoo ay iib geynayso oo ay xayeysiinayso world wide web markay xayeysiisana dee ciddii markaas interest ku ah weliba waa targeted traffic waaye dadka aqoonta ule unbay wejiga ka tusaysaa maaragtay social mediaha dabadeedna iyadu ka iib geynayso lacagta marka markii waxaan arkay waxay inay yihiin wax qiimo leh oo qurxan all done for you na ay yihiin oo lagu wada sameynayo hawshii lagu wada qabanayo ayaa waxay ugu dhalatay waxaanu wax qiimo le waaye wax qiimo lena dee in la sheergareeyo diinteena qabtaba dee oo waa waxaan ognahay oo wixii wanaagsan in bini aadamka loo sheego muslimka walaal iyo ehel iyo soomaaliba way wanaagsan tahay marka anigoo og inaan dambina iga soo gaaraynin dad wax lagu hungoobayana aysan ahayn laga yaabo inay waqti qaadato waan ogaa aniga inay waqti qaadanayso laakiin in qofku haddii uu kusoo biiro oo u safro uu joogo inuu guul ka gaarayo markaan ogaado ayaan go-aansaday inaan sidii aan ku sheergaray karaba aan sheergareeyo social media aan ka sheergareeyo facebook advertisement sameeyey linkiyaal dhigay saas ayaa maaragtay iyo dadkii marka ay dhawaayo ama aan meel wada joogi jirnin asxaabteyda familkeyga kuwa masaajidada aan isku aragno cid walboon arko runtii aadan ugu faraxsanaa waxaa meesha kasoo socdana xoogooda iyo xooligooda aan u jeeday saas ayaana ku sheergareeyey aaminsanayna in cid walba oo soo gashaaho aqoon la-aan iyo aqoontiisa intaba luuqad iyo luuqad la-aan intiisaba fagaara ka hadal iyo xayeysiin intiisaba inuusan qofku ku qasbanaynin inuu qofna keeno haddii uu kusoo biirina uu horumarkiisa uu yahay maaragtay mid saxiix ah oo la hubo markaas ayay ugu kalifta aamina maasha allah waa run gudoomiye maxaan ku dhahay barnaamijkan aynu hadda qabanaynaba sababta maxaan ku idhaahdaa aad saacadda adigoo xilli dambe u tahay waddankaagii aad u qabanayno waxa weeyaan inaan maxaan ku dhahday ummadda soomaaliyeed aan gaadhsiino aad baanan kaaga mahadnaqayaa sidaad weli dhexda ugu xidhan tahay eed u rabtid inta isxidhayso shirkadan inaad ummadaada soomaaliyeed intayna isxidhin inaad uga faa'iidaysid hadba gudoomiye waxaan jeclaa inaan ku yaro weydiiyo aniga maxaan ku idhaha shirkadan markii aan kusoo biiray 2022 waxa la isticmaali jiray zoomka oo marka isniin kasta aash mufaarax ayaa dadka la hadli jiray ka hor markuu la hadlo waqtiga waxa la deganaa oo founder baa la deganaa meel la oran jiray oo platform ah platformka gudoomiye kuwii ka horreeyay wax ma nooga sheegi kartaa iyo iminka ilaa haddeer platformka u dambeeya ee shirkadan ay isticmaasho waagii hore horta shirkada markii lasoo bilaabayay marka hore waxay ku bilaabatay fikirkii ay ku bilaabatay iyo rabitaankii iyo dadkii isla qaatay shirkadan oo kale in la dhiso waxa ku xigay in magacii loo helo waxa ku xigay in shaqaalihii loo raadsho u shaqeynayo waxa ku xigay in platformkii lagu kulmayay oo dadku maaragtay lagu sijilayo ama lagu diiwaan gelinayo la sameeyo go founders platform la yidhaahdo ayaan anigu dadkii ku biiray kuwa ka mid ahay oo ay ku jireen tirada dadka aan hore kugu soo sheegay go founderka marka xoogaa markay dama dadka soo badanayaan daatadii way cuslaatay marka mid kaloo cusubaa la sameynaya huu yiri ilaa ay 3 bilood ay ku qaadatay waa ka midka adiga markaad soo gelisay oo furnaa oo founder la dhahayo oo haddaba aan isticmaalno oo back office keena oo informationada iyo waxyaabaha cusub iyo update-ka lasoo dhigo kaasa haddana u guurnay waad aragtay haddana waan kasii guurnay oo waxaanu joognaa hadda meesha la dhahayo on passive ecosystem OES oo ah maaragtay suuqa weyn ee maaragtay digital businesska ee laga ganacsanayo oo qofku uu isku soo diiwaan gelinayo oo mail free ah
iyo maaragtay productyaal free oo yaalo uu tijaabinayo uu arkayo lagu soo dhaweynayo $10 oo maaragtay free ah waa meeshaas aan joogno runtii waan aragtay sidii u qurux badan tahay xawligeeda xoogeeda waxa waaye 1 second ilbiriqsiga lagu gelayaa runtii aad iyo aad data aad u xoog badan oo qurux badan waaye marka meelo kala duwan la soo maray siyaabo kala duwan ay usoo korortay maasha allah and it's looking good. Yes, and as well is Zoom-kii la isticmaalayna maanta oo kale waa inagan isticmaalaynaa. Ama Zoom-kii waa runtaa taan waan ka ilaaba horta Zoom-kii aan ku kulmi jirnay oo aasho noogu imaan jiray kana maanta maasha allah waxaan isticmaalaynaa oo connect waa productyaasha on passive ay samaysan ka mid tahay oo weli still asagoo saan u yaalo ayuu 100% Zoom ku qurux badan yahay welina waxyaalo badan oo ka dhiman AI-da ka dhiman background-kii waxyaabay adiga dhowr waxaa ka dhiman laakiin as you can see batanada aad u jeediin cajiib waaye meelna ma u baxaysid everything aad u jeedo wax yaali meesha runtii waa aad buu qurux badan yahay mar isaga oo qabyo ah oo welibana dee imika 3 bilood oo quraataba jirayba oo wax yar jiray haddana quruxdiisa waa la arkayaa waana isha waxyaabaha isha macalinka ay noo ah maxaan ku dhahdaa lagu ogaan karo shirkaddan qiimaheega iyo waxay soo wado waayo productigeegii baaba la isticmaalayaa oo nadoo kalenu haysanaa guddoomiye ood aragtay social media oo yacnihii imisa maxaan ku dhahdaa waxoo kala duwan leh guddoomiye cabdi cali sow jazaaka allah khayr baan ku leeyahay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa sida aad maxaan ku dhahdaa mar kasta walaalahaaga soomaaliyeed u garab taagan tahay barnaamijkana insha allah wuxuu inoo noqon doonaa mid aynu wax badan insha allah kaga ogaano shirkadda on passive maalmaha soo socdana insha allah mar labaad aynu ku kulmi doono aad baan guddoomiye kuugu mahadcelinaya waanad mahadsan tahay asalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.